بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ريال إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا إله النوافجي في هذه الليلة المباركة إن أن اسكغني بأنه في هذا المسجد المبارك، مسجد الفاروق في حي برواقو، in aan isugu nimanno annagoo runtii gudannay fariido oo faraa'idka ilaahay ka mid ah, ilaahayna subxaanahu wa tacaala ka rajaynayna in uu naga aqbalo camalkeenna dhammaantii subxaanahu wa tacaala. walaalayaal, caawa insha allahu tacaala waxaa marti inoo ah sheekh mustafa xaaji ismaaciil, oo aad reer jabuuti aad u taqaaniin mustafa burcaawi. aad iyo aad baad runtii u wada garanaysiin walaalayaal, can dariiqi alashrida, sidiyaasha, telefisada iyo raadiyowga iyo cajaladaha, intaba aad iyo aad baad u wada garanaysiin. habeen hore wuxuu ka qabtabay masjid araxma, maantana insha allahu tacaala si tawaasun ay u noqoto miisaan, waa inaa masjidka balbalana markaa masaajideedana markaa mid laga qabtay insha allahu tacaala. insha allahu tacaala mawduuceenu caawa waxa uu noqon doonaa mawduuc aad iyo aad u muhiima. inta badan dadku waxay jecel yihiin mawaadiicda casriga ee taxadiyaadka muslimiinta lagu hayo, laakiin walaalayaal waxaa ka sii daran taxadiyaadka maanta wixii lagu gelayo markaa waxa weeyaan xagga ruuxa, xagga caqliga. markaa mawduuceenu caawa wuxuu noqon doonaa insha allahu tacaala alghafla. ghaflada ayuu noo bandhigi doonaa insha allahu tacaala sheekh mustafa insha allahu tacaala. ghafladana isaga ayaa noo macnayni doona jawaanibta ay koobsanayso, xagga dikriga, xagga markaa waxa weeyaan cilmiga, xagga markaa waxa weeyaan jaanibka ruuxiga, jaanibka caqliga, sidii ay markaa waxa weeyaan ay gashaba insha allahu tacaala. mawduuceynuna sidaa ayuu noqon doonaa. inaguma dheeraynay markaa waxa weeyaan walaalayaal, waxaan bas inaga rabnaa in aad telefoonnada ama bortaabalka wada xidhiin, si markaa waxa weeyaan aan loo mashquulin oo markaa dadka aan loo mashquulin. jazaakum allahu khayr. iminkana waxaan ku soo dhoweynaynaa walaalkeen mustafe masjidkeenna barwaaqo, intayna barwaaqiya intayna markaa ka timiday xayaabley ama belbeleba ka timiday. wajazaakum allahu khayr. ha soo dhowaada walaalkeen sheekh mustafe, falyatafadal mashkuuran. alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama tasliima kaiira. وبعد اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. أنا إخوتي في العقيدة، ريان ربي اسكو حصوصرنا سبحانه وتعالى أي نكورن ضمن موضوع سكو سابسنا الغفلة. أريقا كان الغفلة في عربيهان ابن الفارس في مقاييسه waxa uu ku tilmaamaya inuu yahay asal saxiixa oo macnihiisu yahay ama uu ku tusinayo calaa tarki shayi sahwan wa rubama kaana camda. shayga oo hilmaam, moogani, dhoohani looga tago, ama mararka qaarkood loo odhan karaba waxyaabaha camdiga xataa looga tago waa loo odhan karaa. haddaynu luqada hore u dhaafno cilmi lmusطalaxaat tagno, إمام الكفوي في كلياته وحاو كتل ماما يا غفلة. الغفلة عدم إدراك الشيء مع وجود ما يقتضيه.
غفلة وحا الله يدهدا بولي شيء أود هليلي ويدا أما سيئة فهم ويدا أما سيئة دريمي ويدا مع وجود ما يقتضيه يدو أي تشرته وحكو بحنا يا إنا حصوصناته إمام المناوي رحمة الله عليه سنو حليه غفلة وحا الله يدهدا فقد الشعور بما حقه أن يشعر به وأدقو دريمي وايه وحيا هيدنا درينته راغب الأسفهاني في مفرداته وحورنا يواسه يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ أريدا سي علماء كورما تعريفات كما مصطلحات كيكوت الماما يعني مركا نصاد وضوبنا معنى هيدو حويان وحي هبونيد لحصه أما لحصوصته أما أن له المامن oo qofku uu mooganaado ama ka dhoohnaado ama uu ilaabo ama se uu hilmaamo sida awgeed waxaan halka kan uga jeednaa غفلة غافل laga noqdo كما قال الدكتور سعيد بن مسفر الغفلة عن الله وعن وعده ووعيده وعن جنته والنار وعن الموت وهجمته وعن القبر وظلمته وعن يوم القيامة وأهواله وعن الصراط وزلته هكا waxaan uga jeedaa qaflada aan rabno inaan wax ka tilmaamno waa qofka oo mooganaada si amsig hilmaama rabbi subhanahu wa ta'ala iyo wixii uu ku lahaa waa qofka oo hilmaama waxa alla yaboohay ama se goodiyay janno iyo naar leh waa qofka oo ilaaba geerida iyo dhawaanteeda ama se weerarkeeda waa qofka oo ilaaba xabaash iyo madowgeeda waa qofka oo ilaaba maalinta qiyaame iyo waxa dhib taagan ee bini aadamka la kulmi doonta waa qofka oo ilaaba jidka siraada yare fiiqan ee naqan ee lagu kormarayo jahannama ee qofka bini aadamka camalkiisu inuu yahay waxa gudbin kara وانا رنتي مصيبة من المصائب الكبرى اما وداء اخطر من كل داء وبلايا وين وبلايين كواوين كمدا ومسألة انا يهين الا المامو مثال بسيط تصالي يران المامو هدي هدي وكاين عدلاما اي عدلام مرية لبا حقوة يراره وهذا ورك سيند مهلك كسوغة خطرنا كجرته هدادي اللي وذاك ور لبحي صاحي ما يوم مسكح هذا أبو كبحات وحكى لسكجا مغوشة كبهات كسف صفيسة ودرك سكها جالسته يده وحكوا سورد يا ولبحي وغير معقول يعني وحلا إلا بكرم ما يهين وقت هذا المامته أما سياد وحكى لك فكرت ما يهين هذا مشكلة ده أنت لاقوا كهيسته وحي قفك مؤمن كاهي مرك الرماية ربي سبحانه وتعالى اللي الرسول كيس مرك الرماية ويقين صدين آخرك دم بيسو رميسته إن جنة إيا النار نولشان أي كوغة بقبو بيسو رميسته إن مشاكل أبضان أي تيران أما قول وين أي تيرته ما يهين غافل نغضه ولذلك بقى حديثك جامع الصغير كوكسا روريني صحيح الجامع الصغير إمام الألباني رحمة الله عليه وحاو النبي عليه الصلاة والسلام دعوين كيسا كمده هانشرين ويراهضه اللهم إني أعوذ بك من الغفلة والقسوة نبي محمد عليه الصلاة والسلام بريضة وإلهي بريا يوحى كمده هاي إنه الله كما قنقله اللهم إني أعوذ بك من الغفلة إله وحن كما قنقلي غفلة أما سيدو هنيدة أما موغنيدة أما هلمامك waxaan kaloo kaa magan galay qalbi adayga qofka muuminkii markuu xaqiiqsado in rabbi quraanka ku leeyahay wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya mididin kamidi ma jiro ila iyo jahannamo waa u arooraya baa la yiri subhanahu wa ta'ala aroorkaasi mufassiriintu labay ku tilmaamaan qolo waxay yiraahdaan waa la gelayaa
laakiin inta mu'miniinta ayaa naaru kunii bardan wasalaamantii nebi ibraahim looga dhigo kale kaga baxaya. aktar almufasiriin aw jamhuur alculamaa se waxay qabaan wuruudkani inuu yahay wuruud siraad, basharkao dhan inta lasoo tubo in nalka loo damin doono meel madow jidka siraad oo fiiqan oo dhuuban oo seef ka fiiqan oo qalqalloocan, aan ahayn meel bini aadam uu tasawuro inuu xarfad iyo farsamo uu ku mari karo, meel aan ahayn in la wada mari doono, kalaalibiinay sudhantay iyo waxyaabo qofka bini aadamkaa lagu qabanayo. nebigu uu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam dadka qaarba inay si kaga gudbayaan, qaarna inay ku dhacayaan oo jahannamo ku dhacayaan. qofka mu'minkee rumaysan inuu khatartaa mari doonaa inuu ilaabaa macquul maaha, inuu is-ilowsiiyo ama se uu hilmaamaa macquul maaha. sida ogeed baa rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa gaaladu wاqtaraba alwacdu اlxaqu faida hiya shaakhisatun absaaru aladiina kafaruu yaa waylanaa qad kunna fii gaflatin min hada bal kunna ظaalimiin. ilahay wuxuu tilmaamaya inay halaan halkooda iyo calaacalkooda ay ka mid noqon doonto yaa waylana hoogayagee qad kunna fii gafla min hada, arrinka kan waanu mooganayn ama se waanu dhoohanayn walciyaadu billaah. sidaa awgeed maalintaasi waxa bini aadamku uu tamaniyo waxaa ka mid noqon doona waxaad hadda haysataan. waxyaabaha ugu waaweyn ee bini aadamku uu tamaniyi doono, tamanigu waa waxaad yididiilan doonto, axlaamtaada iyo dreamiskaaga, waxyaaba aad rajayn doonto waxaa ka mid noqon doona yaa mar uun dunidii celiyo jaanis siiya. waa kan maanta aad sheekada ku bixinaysa ee beerdaraynaysa ee cayaaraysa ee boodboodaysa bal ee macaasida ku baxaya. waa wakhtiga maanta aan qiimaha agtaada ka lahayn. waa nolosha maanta aad isleedahay maxaad ku haysataa. dadku waxay isleeyihin maxaan haystaa, xoolo ma haysto, waxba ma haysto, maxaan ku haystaa meesha ka joogaa. tan aad hiifayso ayaad ku warwari doontaa yaa mar dambe tii soo celiya. ilaahu yaa tii mar uun igu soo celiya. si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala xataa idaa jaa axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu صaalixan fima tarakt kalaa inaha kalimatun huwa qaa'iluha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. رب سبحانه وتعالى وحينات المام يا وحب بن آدم كوهلان هالي الدونا مكو على علي الدونا ينيتهي رب ارجعون إلهو علي حقين لقو عليا وحاد فادني سوامحي waa waxa aad maanta hayso. intan aad maanta hayso ayaad tamaninaysaa ilaahu igu celi subxaanahu wa tacaala intii inay maanta ku dhaafta maaha. sidaa awgeed ninka maanta tan fahmi waaya waa garaadlaawe. waxaa maqashaan dad la yidhaahdo indheer garad ama intellectual ama dad thaqaafo leh ama cilmi leh ama aqoon leh. war nin naar galay waxba ma leha. caqli waxaa leh qofka garta khatarta ugu weyne soo socota siduu uga badbaadi lahaa inuu xidhxidho. sidaa awgeed baa ilaahay subxaanahu wa tacaala aakhira wuxuu ku tilmaamayaa inay sheegan doonaan oo qiran doonaan inaanay caqli lahayn. waqaaluu low kunnaa nasmac aw nacqil maa kunnaa fii asxaabi saciir. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala waxay aakhiro marka la yimaado odhan doonaan low kunnaa nasmac simaaca qubuul. markaanu dunida joognay haddaanu wax maqli lahayn ama se haddaanu garaad yeelan lahayn, dad caqli u saaxiiba haddaanu noqon lahayn maa kunnaa fii asxaabi saciir
saciiro dadkeeda maanan ahaanin. saciiro caqlilaa waa gala. sida awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala dadka caqliga leh may ahayn inay galaan meesha tan. iyagaa isku qirayoo leh haddaannu caqli leenahay saciiro maanan galle. faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi الsaciir. rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala maalintaasay qirteen dembiga. dembigoo la qirtaa wakhti uu waxtaraa jira, waa hadda. ama aakhiro markaad qirato waxba ma taro. markaad qirato naartun baa laguu gufaynayaa. laakiin iminka haddaad qirato rabbi waa ghafuurun raxiim. bale sayid اlistigfaar wuxuu nebi moxamed ku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam allahuma anta rabbii laa ilaaha illa anta khalaqtanii wa ana cabduk wa ana calaa cahdika wawacdika ma اstaطact acuudu bika min shari ma sanact abuu'u laka binicmatika calay wa abuu'u bidanbi. waxa uu ku tilmaamay ducada uu nebi moxamed yidhi qofku hadduu akhriyo gelinka hore isagoo rumaysan dabeetana uu dhinto jannuu gelayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. xadiiska bukhaari ku yaalla. gelinka dambe hadduu akhriyo wahuwa muuqinun biha isagoo rumaysan oo uu gelinkaa dambe dhintana jannuu gelayaa buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. ducadu maxay tilmaamaysaa? waxay sheegaysaa inuu qofku rabbinimadiisa ogol yahay, dunuubtiisana uu qiranayo dacfigiisa iyo waxa uu xumeeyey, ilaahayna uu weydiisanayo dambi dhaaf subxaanahu wa tacaala. idan ictiraafku hadduu wax ku taraya inaad xumahaad samaysay ictiraaftidoo rabbi gacmaha u taagtid hadday wax ku taraysa. ama aakhiro ilaahay wuxuu leeyahy faاctarafuu bidanbihim fasuxqan liasxaabi الsaciir. hoog baa u sugan baa la leeyahy subxaanahu wa tacaala saciiro ahalkeeda. ikhwatii fi lcaqiida, haflada aan sheegayno ama mooganidan ama dhoohanidan ama hilmaamkan ama garanwaaga kan intan leegi waa xanuun bini aadamka ku dhaca. laakiin xanuunkaasi waxaa laga caafimaadaa marka geerida la arko. ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaanaه wa tacaala walaqad khalaqna اlinsaana wanaclamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli اlwariid id yatalaqa almutalaqiyaani can اlyamiini وcan الshimaali qaciid ma yalfidu min qowli ila ladayhi raqiib catiid وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. رب سبحانه وتعالى وحت الماما يا جيرد مركا ايتماده ee qofka alla isu jejebiyo in lagu odhan doono daalika maa kunta minhu taxiid. kani waa wixii aad ka weecweecanaysay. geerida dadku ma jecla. hebel madaxaa xanuunay dhakhtarka ula carara halkan ku bixi. waxaad cimrigaaga shaqaynaysay xooloo dhan haddii lagu yidhaha wadnaha waa ku bogsanayaa bixi waad bixinaysaa adoo geeri ka soo cararaya. inta la qabtay bini aadamka waxaa la leeyahay wixii aad ka weecweecanaysay ee rabtay inaad u jarto waa kanoo yimi baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala. rabbi wuxuu leeyahay waxaa la soo taagi doonaa qof walba iyadoo la hogaaminayo la wado oo markhaatiyaal la socdaan. dabeetana maxaa lagu odhanayaa laqad kunta fii gaflatin min haada. arrinka kan waad mooganayd baa ilahay leeyahy. haafil baad ka ahayd markaad dunida joogtay, waad ishilmaamsiinaysay. maad rabin. dhaqanka muslimkaa maaha inuu ishilmaamsiiyo. gaaladu agteeda ma jecla. gaalo meelaa fadhidaan haddaad geerida ka warranta way kaa dareerayaan. ma jecla geerida iyo aakhiro iyo waxa laga warramo. laakiin qofka mu'minkii wuxuu u baahan yahay inuu aakhiro iyo geeri iyo rabbi wuxuu kula kulmi doono inuu in badan xasuusnaado. sida daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy fakashafnaa canka ghitaa'ak. daboolkan kaa rogay baa alla leeyahy. kaannamaa indheheenna dabool saara inaan waxba arkaynin. se geerida tani markay timaadda baa ilaahay leeyahy kashafnaa canka ghitaa'aka fabasaruka alyawma xadiid. daboolka ama wixii ku hadhaynayaan kaa rogay baa alla leeyahy subxaanahu wa tacaala. dabeetana maanta waxaa tahay sharp sighted. basaruka alyawma xadiid. ku indha fiiqan, ku aan waxba ka qarsoomaynin. waxaanaan kaa qarsoomaynin waa maxay?
markii hore aanad rabin inaad wax walba xaqiiqadiisa u aragtid laakiin aad indhaha ka lalinaysay haatanse waxaa lagu leeyahay wax walba calaa xaqiiqatihi baad u arkaysaa waxaad cimrigaaga ku bixinaysay waxay goynayeen baad arkaysaa maalintan tan waxaad garanaysaa salaaddu waxay goyso rabbi waa kuu sheegay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa labada ragcadoodee sunnada ee salaatulfajriga ka horeeya inay adduunka iyo waxa yaallaba ka qiimo badan yihin xabaal intuu soo maray buu yidhi kan ku jira adduunkiinoo dhan wuxuu ka jecelyahay 2 ragcadood maanta waxaad garan doontaa maanta labada ragcadood qiimahay leeyihin iminkase horta muwaadinku haa qiimo baad leedahay sasiinab labadaasi qiimo kuguma fadhiyaan haddii se lagu odhan lahaa shaqada $1 baad kuu kordhaya haddaad salaada subax horteed nusa saacad timaado kullana jaahiziin 3 mobayl iyo 2 saacadood intaad buuxiso xataa haddaad 2 habeennimo seexatay waad ogoshahay inaad 4 ragcadood adawaadkii lagu kici lahaay oo dhan intaad istaba dhigto waayo $1,000 baad qiimihiisa taqaanaa laakiin 2 ragcadood sunnaa qiimaheeda ma taqaanid rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala fakashafna canka ghitaa'ak marka kan daboolkaa lagaa faydaya dabeetana fabasaruka alyawma xadiid ay tara alumuura calaa xaqiiqatiha wax waliba waxay gooyaan baad maanta arkaysaa shay walba dhabtiisii baad u arkaysaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuuna leeyahay walow taraa id almujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbana absarna wasamicna farjicna nacmal saalixa haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala kuwii dembiilayaasha ahaa oo madaxa foorarinaya oo rabbigood hortaagan maanta haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala maxay leeyihin rabbanaa absarna ilaah oo aragnay oo maqan lahay hadda wax waliba waa sidoodii ishii iyo dhegtu maanta si fiican bay u shaqaynayaan baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala markii dunida la joogay dhegtu khayrka umay dheg taagaynin ishu khayrka in badan may arkaynin waxyaabahan yaryar ee dhaldhalaalka adduunyo iyo intan bini aadamku wadwato ayaa la weynaa kursi siyaasadeed xoola la helo wax la mida hunguri magac maamuus inahan baa la buuraa inahan buu raadcaynayay laakiin intaasi waxay aakhiro goynaysu maanta arkay dabeetana wuxuu leeyahay rabbanaa absarna ilaahay oo aragnay oo wax maqalnay ee farjicnaa nacmal saalixa ilaahuna celi wanaag baanu samaynaynaa innaa muuqinuun hadda waa yaqiinsannay bay leeyihin ikhwatii fi lcaqiida ilaahay baa wuxuu ugu jawaabi doonaa faduuquu bima nasiitum liqaa'a yowmikum haada innaa nasiinaakum waduuquu cadaaba alkhuldi bima kuntum tacmaluun walow taraa id wuqifuu cala annaar faqaaluu yaa laytana nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin haddaad arki lahaydeen baa ilaahay leeyahy marka naarta lasoo dultubo oo ay yidhaahdaan yaa laytana nurad yaa laytana xarfu tamani jeclaan lahayne armay dhacda bay leeyihin maana la celiyo waanan ilaahay beeninin bay tamaninayaan laakiin you have the chance now haddaad wakhtiga haysataa al'aan ayaa fursadu ina hor taallaa haddaynu u baahannay intaynu hadhow calacaali lahayn oo aad ku calacaali lahayd maa lay celiyo yaanan wax beeninina iminkaad u baahantay inaad wax beenin iminkaad u baahantay inaad mu'min dhaba noqoto amaa markaasi ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa qolada tan lemaana la celiyo bal badaa lahu maa kaanuu yukhfuuna min qablu baa ilaahay leeyahy hadda waxaa u muuqday waxay markii hore qarinayeen wixii aanay arkaynin baa iminka muuqday baa ilaahay leeyahy ikhwatii fi lcaqiida waxaynu u baahannahay marka wax walba inaynu xaqiiqadiisa u aragno inaynu khaflada ka baxno inaynu garanno nolosha adduun qiimahay leedahay wama alxayaatu اdunya ilaa lacibun walahwun waladaaru اlaakhirati khayru liladiina yattaquuna afalaa tacqiluun inaynu garanno haafilku qofka aakhire iyo waxa jira moogani ama se ishilmaamsiiya ma hanuunaba ma hanuuno sidaa ogeed baa rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu tilmaamaya ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. رب سبحانه وتعالى وحط المام يدول أدونك كتش على استي آخر إلا بين كدبنا إلهي وحليه سبحانه وتعالى قلبي قال لنبابيا يا إشي يا أرقب وحبا مقل مايان وحناركي مايان محاكي أني سببته أولئك هم الغافلون با إلهي إليه سبحانه وتعالى. غفلته مرك وسجن للقلب. غفلته وإن القلب قاق حبسك أودرته وإن القلب قاق حبسك أودرته سيدا وقد با إلهي وحليه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وحنوبة هنا مركة إيش وحي الله بهنا إنا يركته دي أركي ويده دكت وحي الله بهنا إنا يمغشه دي مغل ويده قلبي وحي الله بهنا إنه ويلي هدو ويلين وايو وادب إلهي بقرآن كوحكو لي جهنم دول بانو قتلق اللي جن إيا إنسي بكمده أهل النار كم حاو علامة مركة وحاو علامة رب لي لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وحي إلهي سبحانه وتعالى وحي إلهي قلوب أنا وحكو فهمين وحي إلهي إنده أنا وحكو أرق وحي إلهي إنده أنا وحكو مقل. macnaheedu ma aha inaanay waxna arkaynin waxna fahmaynin waxna maqlaynin ee waxa weeyaan waxay ka soo dhaceen darajadii bini aadamnimada oo adawaadka ama ashiyaadan la siiyay waxay u adeegsadeen inta xooluhuba u adeegsadaan. xooluhu inay bahalka cararaan ama wax cunaan ama inta aragooda waa u adeegsadaan dhagtoodana waa u adeegsadaan caqligoodana waa u adeegsadaan waa daaq tagaano waa soo xeroodaan si ay dhashooda u taranto waa iskoraan. haddaa bini aadamku uu intii noqdo inaad waxna cunto waxna cabto dumarna guursatid ama nin guursato gabadhu intaa xayawaankuba wuu yaqaanaa. walaqad karramnaa bani aadama baa ilaahay ku tilmaamay. idan waa inaad darajada xayawaannimada ka kor marta. waxaad ka kor maraysa haddaad mustaqbalka garanayso iyo makhaatirta iyo mushkilaadka kugu soo socda. sida awgeed ilaahay kuwa wuxuu ku tilmaamay caqli iyo garaad iyo wax faham iyo wax maqal iyo wax aragtoona inaanay lahayn. dabeetana ilaahay wuxuu yidhi ulaa'ika kalancaam kuwani waa xooloo kale. markaas haddana la yidhi bal hum adal waa ka liitaan. waa xooloo kaloo adawaadkan intay u adeegsadaan waa inta xooluhu u adeegsadaan waa ka liitaanoo de iyagu bini aadam bay ahaayeen waxaa la rabay inay xoolanimada ka sarreeyaan. mar haddii ay ka sarrayn waayeen iyagoo ilaahay siiyey subxaana wa tacaala wixii ay kaga sarrayn waayeen waxay kaga sarrayn lahayn iyadoo alla siiyey waa liitaan. sidaa awgeed uma baahnin garaadkeenna iyo aqoontaada iyo raganimadaadu inay noqoto sidaad wax u cuni lahayd ama sidaad wax u cabbi lahayd ama sidaad mara u xidhan lahayd ama sidaad gabadh u guursan lahayd. hadday aqoontaadu ku soo ururto waa aqoon liidata. aqoontu waxay ahayd inay u tallowdo xad ka sarraysa xadka xayawaanka. xayawaanka qur-aanku wuxuu u adeegsadaa marka basharka lagu tilmaamo waa maruu bini aadamnimadiisii luusgareeyey ama lumiyey. ninka caalimka ah ee aan diinta ku dhaqmine barbar cararay ilaahay wuxuu ku tilmaamay kalkalbi in taxmil calayhi yalhad aw tatruku yalhad. ey buu la mid yahay. haddaad eridana carab ku laalaadin waa haraaryoon haddaad iska daysana waa haraaryoon baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala. waa wadaadkii kitaabka dhinac orday. rabbi subxaana wa tacaala caamada diinta iska dhagamarta wuxuu ku tilmaamay kaannahum xumurun mustanfiratun farat min qaswara. dameer farow libaa xeryaday oo orday oo kale ay la mid yihiin baa ilaahay yidhi. dameer farowgu wuu dheereeyaa. baqahana de hadduu libaax ku soo cararo inuu xoog u ordi doonaa la tilmaamaya. caamada isdhagamaraysa ee rabbi ka jeesatayna waxaa lagu tilmaamay dameer cararay inay la mid yihiin.
wadaadka kitaabka xambaarsan ee aan faa'iido badan ku qabin waxa lagu tilmaamay dameer buugaag la saaray ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inay la mid yihiin idan mar kasta oo qofka bini aadamkii caqligii iyo garaadkii iyo maqalkii iyo araggii la siiyey uu rabbi ku caabudi kari waayo ama se uu naar iskaga ilaalin kari waayo waa mushkiladii ugu weynayd caalamku waa naar haniimadii ugu weynaydna waa janno iyo rabbi aragtidii labadii waxay ugu waaweynaa haddaad lumiso macnaheedu waxa weeyaan xoolahaad ka liidataa xoolo ma gaadhid ee waad ka hoosaysaa darajadii bini aadamkana hoos baad uga sii dhacday waayo gaaladu darajadaasi markay ku dhacaan ilaahay baa wuxuu leeyahay yaclamuuna ظaahiran min alxayaati اdunya wahum can اlaakhirati hum gaafiluun nolosha muuqaalkeeda saray garanayaan baa ilaahay yidhi ama badda quus ama cirka duul waa the same life nolosha muuqaalkeeda saray garanayaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wahum can alaakhirati hum gaafiluun aakhirase gafla baa kaga sugan yihin baa rabbi leeyahy waa moogan yihin waxaynu u baahanay marka اqtaraba linnaasi xisaabuhum wahum fii gaflati mucriduun وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون وحيgu wuxuu u soo degay inuu غaflada inaga qaado inaynu nolosha si dhaba u aragno inaynan ilaabin wixii mudnaa in la xasuusnaado haddii aan ku tilmaamay غafladu inay xanuuntay dhakhaatiirta markaad u tagto xanuunka waxaa jira waxay yidhahdaan symptoms acraad wax lagu garto qofku inuu xanuunkan hayo markuu kaneeca ku hayso marka afku ku qadhaadhaado ee margiyadu ku xanuunaan ee xumaddu badatay caynkana waxaa markaad ku akhridaa dhakhtarku buu yidhaahdaa yes kaneeca haysa ha la siiyo kiniin kaneeco adu kaneeca maad sheegin laakiin waxaad sheegtay maxay acraad tilmaamaad sheegtay tilmaamahaasi wuxuu ka fahmay dhakhtarku xanuunkaagu inuu yahay kaneeco tilmaamahaad sheegtay wuxuu ka fahmay xanuunkaagu inuu qaaxo yahay tilmaamahaad sheegtay wuxuu ka fahmay xanuunkaagu inuu noocaa yahay tilmaamaad jira haddaad isku aragtid aad khatar ku sugantahay khafladii waa soo socotaaye is ilaali marka maxaa ka mid ah khaflada calaamaadka lagu yaqaano waxaa ka mid ah altakaasul can الطaacaat haddaad aragto qofkaoo ka caaja haddaad naftaada aragto iyadoo marka cibaadada iyo طaacada la soo qaadana ay caajis iyo wahsi iyo hamaansi bilaabayso marka sheekada iyo hadaltirada iyo tirorogta la wadana aad nashiid iyo qof firfircoonoo soo jeedo aaraa badan oo hadal fiican oo warramaya aad noqoto ogsanow xanuunkuu bilowgu kugu yihi waa wax ka mid ah acraadii sidaa awgeed nabigu calayhi الsalaaةu wasalaam axaadiistiisu waxay tilmaamayaan wax arrinkan u eg مثلا qur'aanka ilaahay wuxuu leeyahay munaafiqa markii la sifaynayay walaa yaatuuna الصalaaةa ila wahum kusaala walaa yunfiquuna ila wahum kaarihuun وإida qaamuu ilى الصalaaةi qaamuu kusaala yuraa'uuna الnaasa walaa yadkuruuna allaha ila qaliila ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanaه wa tacaala sifada munaafiqnimadu qalbigay degtaa garan maysa adigu qofku ma munaafiqba ma mu'minba waxa qalbigiisa ku jira laakiin munaafiqnimadu markay qalbiga degto acraada symptomska xumadda ka muuqanaysa aad ku qiyaasaysa aad odhanaysa kani waa xaggaas uu sii janjeedhaa waxa weeyaan baa ilaahay yidhi laa yaatuuna الصalaaةa ilaa wahum kusaala salaadda ma yimaadaan iyagoo caajis ah oo ay ku dhib tahay mooyaane halkii nebi maxamed calayhi الsalaaةu wasalaam salaadu ay ahayd markay dhibtu qabsato meeshuu miciinsadaba arixna biha yaa bilaalu lahaa istaciinuu biالصabri والصalaaة ilaahay qur-aanka ku tilmaamayey bale nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam iyagoo dagaal ka soo noqday oo saxaabadu soo socotay ayay meel degeen dabeetana waxaa la yidhi salaaddii subax yaanay inaga tegina yaa ina ilaalinaya yaa salaadda inoo ilaalinaya ciidanka inta kale ha iska seexatee
bilaal baa yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo anaa gaadhka qabanaya anaa salaada ilaalinaya waa la daalay dagaal baa laga yimi muddaa la socday waa goor dambe bilaal baa wuxuu yidhi anigaa idin ilaalinaya iska seexda dadkii baa seexday bilaalla fadhigu ku gamaysna cadceeddii baa soo baxday nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa indhaha kala qaaday iyadoo cadceeddii soo jeedo dabeetana dadkii baa kaakacay bilaal baa la yidhi maxaa dhacay wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo allihii naftiinna qaada annan tayda qaaday anugu waa fadhiyo soo jeed waan islahaaye waa anna ila tagtay dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum bihi alghafla waar meesha tan khafladu inugu haleeshay inaga rara buu nebigu yidhi xataa kuma tukanin bal meeshan inaga raro meel kale oo aan khafla inugu haleelin nebigu muxuu khaflo ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam hal habeenoo dagaal laga soo baxay oo lasoo lugeeyo dhibi timi oo uu gaadhkii laga dhigay uu salaada dadka u toosin lahaa oo dabeetana ay dhacday in cadceedda ku soo baxdo ayuu nebigu wuxuu leeyahy taxawaluu can makaanikum aladii asaabatkum bihi alghafla idan haddaad aragto adigoo jumca iyo jamaacaadka jarjaraya waa mushkilad waa calaamo ka mida calaamaadkaasi saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka muslim ku yaalla duul ka tageen oo ka tageen yacni jimca ka tegistooda joojiyeen amase ilaahay subxaanahu wa tacaala layakhtimanna allahu calaa quluubihim ilaahay baa qalbigooda dhababi doona kadibna waxay ka mid noqon doonaan buu nebigu yihi kuwa haafiliinta ah haddaad jimcaha ay ku dhaafdhaafo aad u jarto waxaad ku biiraysaa ahlu khaflaha haddaad aragto duul salaaddii jimco oo la aqimay amase la adimayo dukaanka weli sii iibiibinayo wada ogsoonow khafladii baa ku haleeshay calaamaadka khaflada lagu garto waxaa ka mid ah ayay culammadu yidhahdeen alistihaana bilmacaasi qofkoo agtiisa ay ku fududaato macsidu adhow baad iska toobadkeenaa macaynkan ee iska samee tan gabadhan iska salaan tan la sii hadal waxaan samee halkan ka bax waxoogaaga ribada iminka doorka kan ka dambaad ka toobadkeenaya iska wad haruma jaraa dunuubtii waaweynayd iyo macaasidii qofka la fududaada bini aadamkana ilaahay wuxuu ballan qaaday in la itixaami doono waxyaabaha calaamaadka ah baynu wakhtigoos ka soo koobno waxaa ka mid ah qofka oo wakhtigiisu uu lumo biduuni faa'ida raasamaalka ugu weyne qofka bini aadamkii haystaa waa wakhtiga waayo cimriga la sheegaya waa imisa 60 baan jiray 50 baan jiray 70 baan jiray waxaanad sheegaysaa waa saacadaha kan jaaniska aad nolosha ku haysataa waa saacadaha kan waa raasamaalka xaqiiqiga waa raasamaal saacad waliba markay tagto waxa kaloo dhan waa la soo celin karaa isaga lama soo celiyo saacaddii ku dhaaftay intaad ma soo laabmayso wixii ugu weynaaye qofka bini aadamku uu haystay saxaabada waxaa la yidhahdaa waxay caan ku ahaayeen wakhtigooday kaga shaxiixsanaayeen dirhamka iyo diinaarka innagu yacni lacagtaynu bukhala ku nay wakhtiga laakiin waad ogosha inaad iska sheekayso boodboodo waxa ka iska wado ama wax soo bix haddii lagu yidhaahdo aad dad gacanta u xijinaysa iyagoo xooluhu qiimaha weyn may samaynin wakhtiga axadu saalixiin baa waxa la yidhi mid baa wuxuu yidhi waxoogaa baan rabaa inaan kula sheekaystee sheekh iyara sug wuxuu ku yidhi orodoo cadceedda jooji yani cadceeddu way igu socotaa time baa igu socda buu leeyahy dardasho war uma hayo weeyaan wakhtaa soconaya haddaad aragto qofka oo wakhtigiisu uu cidlo kaga lumayo waa xanuunka kan baa haya qofka oo aanay la weynayn waxyaabihii uu ilaahay ugu dhowaan lahaa subxaanahu wa tacaala qofka oo aan qur-aanku raadaynaynin iyo cibaadaadka kani waxaasoo dhamme ikhwatii fi lcaqiida waa acraab ama symptoms ama calaamado khaflada lagu garto waxaynu kale isweydiinaynaa maxaa sababa ninka dhakhtarkii marka lagu idhaa kaneecaa haysa laabka markuu kuu diray dhiig kaa qaadee la egeego waxbaa jira ay odhanayaan waxan baa jidhkiisii ku jiro oo waxaasaa wuxuu sababay in waxa kane yacni asbaab baa jirta kaneecannimadu
maxaa sababa waxaan leenahay sababta ugu weyni waa aljahlu billaahi wa bikitaabihi wa bilislaam waa qofkoo jaahil ka noqda alle subxaanahu wa tacaala iyo kitaabkii uu nebi moxamed u soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam iyo risaaladii loo soo dhiibay qul hal yastawi alacmaa waalbasiir indhooliya miyay siman yihin baa ilahay yidhi ku indha qabaa maxaa u dhaxeeya dee aragtaa u dhaxaysa jahliga iyo cilmiga aragtaa u dhaxaysa wamaa yastawi alacmaa waalbasiiru wala adulumaatu wala alnuuru wala adillu wala alxaruur waxyaabaha sababa gaflada waxaa ka mid ah saaxiibada xun haddaad xuma rabto inaad ka tagto dadkiisa ka tag haddaad rabto inaad xuma dayso xumaha dadkiisa daa rafiiqa saaxiibka xumi waa ku kaxaynaya adigana sidaa awgeed baa nusuus badan oo qur-aan iyo xadiisi tilmaamaya saaxiibka xun iyo dhibtiisa waxaa ka mid ah yacni environmentka saalix oo dhan aad ka tagto haddaan soo koobno maxaa cilaaja qaflada haddaad isku aragto maxaad kiniinkaad u baahantahay inaad liqdo si aad u bogsatid maxaad u baahantahay inaad liqdo si aad arrimaha xaqiiqadooda u aragtid waxaan leenahay koo waxaad u baahan tahay altawbatu ma alcilm inaad ilaahay u noqotid subxaana wa tacaala iyo toobad keentid cilmina baratid faaclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik cilmi tawxiidka baratid rabbi baratid cadaabka baratid janno ogaatid naar ogaatid qiyaamo ogaatid waxa hawl iyo dhib dambeeye garatid wax walba aad qiimihiisa xaqiiqiga ee baratid waxaynu u baahanay inaynu iimaanka cusboonaysiino nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay iimaanku inuu u gaboobo sida maradu dusheenna ugu gabowdo dabeetana ilaahay waxaa weydiisataa buu nebigu yidhi in ilaahay iimaankiina cusboonaysiiyo iimaankaaga inaad cusboonaysiiso waxaa cusboonaysiiya waa meelaha wacdigu ka socdo meesha diinta lagu hayo cibaadaadka waxaasaa cusboonaysiiya waxaad u baahan tahay inaad dhulka khayrka lagu hayo dadka wanaagsan raacdid ilaahay oo nebi moxamed la hadlaya calayhi salaatu wasalaam rabbi tabaaraka wa tacaala oo nebigiisii la hadlayabaa wuxuu leeyahay wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy ilaahay baa wuxuu nebiga ku leeyahay naftaada waxaad ku sabir siisaa inaad la joogto oo u dulqaatid oo la dhaqantid maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati waalcashiy yuriiduuna wajha ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إلهي باوح النبي سكولي انت وناكتن لفردي نفط هذا قصة برسيك وقلن هورية قلن دنباب الرب قد حصة يا بريا يا إلهي وجهي راض عيني إنها وتاقن با إلهي لا ينت حولها له زهرة الحياة الدنيا انت هيسطة هل قيبا تكون اشتراده والله هبل oo saaxiib fiican oo lacag haysto hadaad la raacdo waxba kaaga soo duulduuli doona dhagiisa laakiin miskiinka masaajidka iskaga warwardinaya ama wadaadka kutubta akhrinaya hadaad ag fadhido ma tastafiid minhu shay-an yani waa maqaayiska qaldan maqyaaska dhabtaahi waxa weeyaan inaad saaxiibada inay kugu kala dhow yihiin sida ilaahay ugu kala dhow yihiin dadku inuu kugu qiimaysan yahay sida ilaahay awliyadiisa u yihiin qofba qofkaad sileeday ilaahay buu uga dhowye ku dhowow kaasaa kalgacalkiisa iyo dhowaantiisa aakhiro wax ku taraysa bale kaasaa la fadhigiisa wax ku taraya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiisulqudsiga uu rabbi ka warinaya saxiixu muslimka ku yaala waxa uu rabbi tilmaamaya uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka warramaya inay jirto malaa'ig dunida dawaafta oo raadisa meel ilaahay lagu caabudayo ama dad ilaahay subxaanahu wa tacaala isxasuusinaya oo kuwa markay arkaan la fadhiisto oo la dega oo dabeetana rabbi weydiiyo malaa'igtaasi maxay addoommahaygu qabanayaan oo ay u sheegaan ilaahay inay u tasbiixsanayaan oo wardinayaan oo ilaahay xusayaan
xadiidka maxallu shaahidka haddaan tago marka u dambaysa ilaahay wuxuu ku yidhaahdaa malaa'igay waxaa markhaati ka noqotaan inaan dembigooda dhaafay. malaa'igtaa waxay tidhahdaa ilaahayow waxaa la fadhiyey mid aan iyagaba ka mid ahayn, mid baahi iyo dan kale iskale xaajo kale mid lahaabaa ku jira oo aan isagu ka mid ahayn kuwii wardinayeyba. rabbi baa wuxuu yidhaahdaa subxaana wa tacaala faashhadu annii qad gafartu lah hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum. markhaati ka noqda baa ilaahay yidhaahdaa isagana dembigiisa waan dhaafay. qoluu la fadhiyaabaa ilaahay yidhi kii la fadhiya aanu hoogin. idan kuwa ilaahay ku dhadhow fadhigaad la fadhiisato ayaa ilaahay dembigaaga ku dhaafi karaa. hum lqawmu laa yashqaa bihim jaliisuhum baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala. waa duul cidda la fadhiisataana aanay hoogin. waxaad u baahan tahay dhulka khayrka inaad ku dhowaato aanaad ka fogaanin. nabi moxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi warinayay sheekh alalbani saxiixa ku tilmaamaya man badaa jafa waman ittabaca sayda gafal waman ata sulطaana iftatan. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man badaa jafa ninka reer miyiga noqdaa waa adadkaadaa, waa nolol adag nolosha baadiyo. wuxuu kaloo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waman ittabaca sayda gafal. ugaadhsataduna gafla ku dhacda buu nabigu yidhi. ugaadhsatadu dee meesha dadkuba wuu ka tagaa ila waa nin ugaadh raadinaye. meel ugaadhi joogto bahal meeluu ku noolyuu raadcaynaya. isagu markaa siduu ugaadh raadcadeed ugu jiro jamac iyo jamaaca iyo meel lagu cibaadaysanayaba uu ka dheeraadaa. akhiiran waxa ku dhacaysa maxay? gafla buu nebigu ku tilmaamaya. mooganidii ama dhoohanidii baa ku dhacaya. dee hadda ugaadhii berigii hore ee reer miyiga bahalkan la dabagalahaye ugaadha iminku waa doolaarkan iyo waxa kan. dadku say lacag unu raadinayaan ba ilaahay bay ilaabaan. lacagay halkay gashayba waa laga dabagalay. haddii talyaaniga lagu sheegay, haddii maraykan lagu sheegay, dunida dabadeeda haddii lagu sheego lacag waa sahankeed. hadduu warkeedu ku soo gaadho waa la daba socdaa. idan hadduu noloshaadu noqoto sidii lacag loo heli lahaa qad gafalt. waa sayd cusub, waa ugaadhsiga casriga ah ee wakhtiga kan jooga. ninka uun boqorka iyo agagaarkiisa ka fogaan waayana waa imtixaan maabuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. sultaanka iyo madaxda iyo intanuu ninka isku nanabaa inta badan iftatan buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, waa imtixaanma. waxaynu u baahanay marka si aad gaflada uga baxdo muqaatacatu rufaqaa'i suu, dad xunka iskaga tag, dadka fiican ku dhadhowow. si aad gaflada uga baxdo ilaahay dikrigiisa badi, xuska alle subxaana wa tacaala iyo baryadiisa badi. dadku waxaad moodaa baryadu inay iskagaba yartay. baryada ilaahay badiya subxaana wa tacaala. badi xuska aad ilaahay xusayso subxaana wa tacaala. qur'aan akhri, cibaadayso, wardi, dikri, aayaad akhri. yacni nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu sheegayaa ilaahay dikrigiisa iyo xuskiisa wax aad u fadli badan oo tiro badan. waxaynu u baahanay inaynu badinno. saa daraaddeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy wadkur rabbaka fii nafsika tadarrucan wakhiifa waduuna aljahri min alqawli bilguduwi walaasaal walaa takun min alghaafiliin baa ilaahay yidhi. war ilaahay xuskiisa badiya. aad naftaada ka xusayso alle subxaana wa tacaala. gelin hore iyo gelin dambe iyo wakhti walba alle xus. oo walaa takun min alghaafiliin baa ilahay yidhi. kuwa dhoohan ama moogan ama hilmaansan ha ka mid noqonin. nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka imaam tirmidi warinaya sheekh alalbanina xasan ku tilmaamay, waxa uu soo maray haweenow wuxuu ku yidhi calaykunna bitasbiix. haweenow calaykum bitasbiix ay ilzamu tasbiix. haweenow laazima tasbiixda iyo tahliish iyo taqdiir wardiga laazima oo faraha ku tirsada. fainahunna mustanaqaat aakhira markhaataa la gelinayaaye. walaa takfulna buu nebigu yidhi. war hoy dumarow haafil ha noqonina. ha ilaabina ilaahay wardigiisa. inaa alla xustaan ha ilaabina. oo haddaa alle ilowdaan naxariistaa ilowda weeyaan. waxa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qara'a 10 aayaatin fii layla lam yuktab min alghaafiliin. habeenkii ninka 10 aayadood akhriya
laguma qoro kuwa ghaafiliinta ah boqol aayadood ninka akhriyana qaanitiinta lagu daraabu nabigu yiri kuwa khushuucsan waxay ahaayeen saxaabadii nabigu calayhi salaatu wasalaam wardigooda iyo dikrigooda iyo salaadooda iyo quraanka marar badan isku mid quraabay ahaayeen inagu xoogaa baynu quraan intaynu yara akhriyo iskaga tagnaa ama yar baynu gacmo ka wardina iska tagnaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam salaad sunnah intuu kaco ayuu quraaba 5-6 ajzaa wax ku dhow ragcad ku akhrinay hal ragco uu taagan yahay ayuu wuxuu akhrinayaa maxay 5 jis 6 jis inagana taraawiixda oo dhan jiska lagu akhriyo maxay naga culays badan isna waa ragca waahida ayuu inta ku akhrinay markaasuu saxaabigii xadiidka warinaya leeyahay intii uu taagnaa in laag buu rukuucsanaa oo muxuu akhrinay subxaana rabbiyal cadiim taaynu naqaan waa wardinay isagoo iska rukuucsan ayuu wardinay intii in laag buu sujuudsanaa muxuu akhrinay subxaana rabbiyal aclaa daasoo akhrinay waa wardinay salaadiisii wardigiisii xisbigiisii quraanka wixiiba meel buu isugu geeyay waxaynu u baahanay inaynu ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa badinno oo dikriga iyo ducada siiba waqtu lghafla nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira xadiid xasan culimmadu ay ku tilmaamayaan ducaa suuqa xadiidkan sheegaya waxa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka subaxi suuqa markuu gelayo yidhaahda laa ilaaha illa allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wa calaa kulli shayin qadiir yidhaahda waxaa loo qoraa buu nebigu yidhi 1000 xasana waxaa laga masaxaa 1000 sayi'a 1000 gama taqaanin luqada carbeed waxaan hadda milyuunka la yidhaahdaa kuma jirin 1000 waa kun lagu dhuftay kun lagu dhuftay waa maxay waa 1 milyan hal duco oo sadar ka yarba haddaad akhrido kun dembina lagaa masaxaya hal milyan oo dembina lagaa masaxaya hal milyan oo ajarna aad leedahay laakiin waxay culimmadu yidhahdaan waa waqtul ghafla oo dadku ma haleelo dukaanka yaa rasaaq yaa fataaxdu bilaaba hunguri unba bilaabma shaqada markaad socdo hunguri rabbiba dadku inta badan waa waqtiyada ilaabaan laakiin suuqa markaad galaysa haddaad ku bilowdo waxuu nabigu tilmaamaya waxa kan awqaati alghafla nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa cibaadada dadku ay la yimaadaan waqtu lharj aw waqtu lfitna waqtiga dilka iyo dhac iyo boobka iyo dhibaatooyinku jiraan qofka cibaadaystaa waa ka hijratin ilaya buu nabigu yidhi hijro aniga laysoo hijroodoo kale walhijratu tajubu maa qablaha haddii xadiidkii alislaam yajubu maa qablah hijraduna sidoo kale iyana waa tirtirtaa hijro nebi maxamed aad u haajirtay bay la mid tahay baa la leeyahy wakhtiga fitanka iyo imtixaanku jiraan haddaad adigu cibaadada badsato bale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa salaadba inay u fadli badan tahay marka faralka laga yimaado tan la tukado waa naasu niyaam dadku markay hurdaan haddaad adigu kacdo habeenkii markay dadku hurdaan haddaad adigu salaad u kacdo fariidada shanta ah kadib waa ta u fadli badan ee la tukado idan waxaynu u baahannay dikriga iyo ducaaga iyo rabbi subxaana wa tacaala xasuustiisa inaynu in badan badinno oo in badan ilaahay subxaana wa tacaala ku xidhanno waxyaabahaan tilmaamaya waxa weeyaan wax fudaydinaya inaad khaflada ka baxdo wax fudaydinaya inaad rabbi u dhowaato subxaana wa tacaala waxaan ku soo gabagabaynayaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam bisha shabcaan oo kale soonkuu badin jiray markii la weydiinay wuxuu yidhi waa shahrun yakfulu canhu nnaas waa bil ay dadku hilmaamaanoo rajab oo ashhurul xuramka ka mid ah iyo ramadaanoo fadli badan bay u dhaxaysaa marka awqaatu lghafla buu nebigu xataa cibaadaadkiisa la eeganayay waxaan ku soo koobayaa marka waxa ugu mudan inaynu xasuusnaana waa alle subxaana wa tacaala iyo mustaqbalkii nolosheenna oo ah sidaad naar uga badbaadi lahayd salaamo nabadgelyo la helo waxa ugu weyn inaad jahannamo ka badbaado haniimo la helana waxa ugu weyn jannada iyo rabbi aad aragto subxaana wa tacaala idan wixii ugu weynaa ee qof bini aadami iyo ummad iyo dowlad ay heshaa dadku haafil ka noqdo dowladihii iyo ummaddii iyo dadkii dhaqaalaha la fiicnaysiiyo iqtisaadka
bariiskiiyo cunnadu ma laga warramaya waxay ahayd in dowladda iyo ummadda iyo dadkoo dhammi ka fakari lahaayeen ilaahay qur-aanka wuxuu tilmaamay dowladdu maxay qabataa aladiina in makannaahum fi lard aqaamuu salaah baa ilahay yidhi waa kuwa dhulka markaanu makansiinna baa ilaahay yidhi aanu u dhiibno maxaa laga rabaa inay qabtaan aqaamuu salaata wa aatu zakaa waa salaad bay oogaan baa la leeyahay zakana way bixinay kuwan baa acmaashan baa ah qiimaha xaqiiqigaa waxa leh marka kelmadaydu waxay ku koobantahay naftayda iyo idinka baan ku waaninayaa aan ilaahay xasuustiisa badino haddaad ilaahay ilowdana waa maciisho dankiya sida qur-aanku tilmaamaya waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira qaala kadalika aatadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyowma tunsa wakadalika najzi man asrafa ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamayaa ciddii xasuusan ayuu allana xasuustaa rabbi wuxuu leeyahay xadiid alqudsi ee nebi maxamed sheegaya calayhi salaatu wasalaam anigu waxaan cinda danni cabdi malahu addoonkaygu iga malaysanayo xuskiisa haddaad ilaahay xusto isna waa ku xusayaa fii mala'in ka khayr badan mala aad adigu ka xustay ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu watacaala inuu toobadayna waafajiyo kuwii aakhiro liibaana adduunkana aan hoogin in alla inaga yeelo صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ay aadka u muhiima taasoo ka warramaysay marka waxa weeyaan qaflada amba mooganaanta insha Allah ta'ala sidaad maqlayseenba mustaqbalka qofku waxa weeyaan walaalayaal waa ilaahiisa subxaanahu wa ta'ala oo ku xidhnaado waa aakhiradiisa oo eegto caqliga iyo marka waxa weeyaan jazaahullahu khayran